السلام عليكم صاحبتك سدوادا channelka maanta waxaan isla xalinaynaa problem loo yaqaano read only problem diski yani computer saaxiibkiya wuxuu qaadan waayay windowga uu qaadan waayay sababtoo tahay ma lahan write option marka meeshaas waxay diski uu ka noqday read only markii la tago this PC markii la tago ma soo qabanayo although ku jira hadda fiirino meeshan uu ka mid yahay maxaa la yidhahdaa uu ku xiran yahay mujeda as external ahaan ugu xiran yahay marka problemkan waxaa loo yaqaanaa read only maana SSD noocan oo M2 ayaa loo yaqaanaa marka waxaa soo furanaynaa marka koowaad CMD command promptiga administrator ahaan usoo furo yes waxaa ku qortaa disk part waxaa dhahdaa list diskida ku saxa marka kiiga ka labaad waaye so meeshan waxaa ku qortaa attributes disk clear read only kababi read only kababi okay problemka ay qabsadaa wuxuu yahay maana dooranin okay inaa soo doortay ahayd waxaa dhahdaa select disk one aad ii select garaysan kana ran garaynaa marka hadda attribute waa laga saaray meeshaan saa ka aragtiin waa isbedesha fiiri hadday waxay ahayd read only hadda waxa waa online ku soo qormay sida kan camal kan oo mainka ah marka problemka saas ku xalin kartaa haddii uu ku qabsado